kulan wanaagsan daawade. Halkan waa Abraham Show. Waxaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa arrin naxdin leh oo ka dhacday degmada Afgooye oo ah haweeney 9 caruur ah haysata oo ninkeeda ku dishay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Daawade, haddii ay tahay markaaga ugu horeysay aad aragto channelkan, fadlan subscribe sidoo kalena taawo gambaleelka kuwa muuqda si aad mar walba ula socoto macluumaadkan halkan ku soo gudbino. haweeneydan iyo ninkeeda oo lagu magacaabi jiray Cabdisalaam Maxamed Macalin waxaa dhex maray muran xoogan inta uusan falka dilka dhicin. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qaabka uu dhacay dilka iyo sababta loo aaneynayo. Dadka deegaanka ee saaxiibada dhow la ah ninkeeda ayaa ii xaqiijiyay in haweeneyda ninkeeda sababtay u dishay ay tahay maseer ay ka qaaday haweeney kale oo uu la guursaday, balse booliiska iyo maamulka degmada Afgooye ayaa baaraya sababta rasmiga ka dambaysa dilka. Cabdisalaam oo ahaa wiilka ay xaaskiisa dishay ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo aad looga yaqaanay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna xaaska dishay isku dhaleen 9 caruur ah, taasoo ka dhigan in muddo dhowr sano ah ay nolosha ay ku mideysnaayeen. In haweeney maseer dartiis ay ninkeeda u disho waa dhacdooyin naadir ku ah dunida marka la barbar dhigo ragga inta badan maseer dartiis xaasaskooda u dila. daawade, mar kale waxaan ku xusuusinayaa haddii aad channelkan ku cusub tahay, fadlan subscribe sidoo kalena taawo gambaleelka kuwa muuqda si aad mar walba ula socoto macluumaadkan halkan ku soo bandhigno.